suuqa weyn ee Bakaaraha ayuu kormeer socda ku tagay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir iyo qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka iyagoo u howlgalayay arrimaha amniga iyo sida ay ciidamada ammaanka u howlgalayaan. Mas'uuliyiintan ayaa inta ay kormeer ku jireen waxa ay la kulmeen ganacsatada suuqa gaar ahaan kuwa qudaarta iibiya iyagoo ku dhiirigeliyay horumarinta ganacsigooda. intaasi kadib duqa magaalada Muqdisho gudoomiye ku-xigeenada gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka iyo mas'uuliyiintii kale ayaa kormeer kadib ku afuray suuqa weyn ee Bakaaraha. gudoomiyaha degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir mudane Cabdikariin Cali Kaar ayaa ka warbixiyay kormeerkani in magaalada Muqdisho nabad tahay in meel walba oo kamid ah si nabad ah loogu afuri karo si nabad ah loogu noolaan karo gudoonkii sare ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyaal degmooyin oo waliyow cadde ayaan halkan ku afurnay wadada dhexdeeda dad shacab nala afuray nala tukaday marka fariinta aan caawa diraynahay waxay tahay in magaalada Muqdisho nabad tahay. gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax waxa uu sheegay in kormeerkan uu qayb ka yahay dhiirigelinta amniga. maanta maamulka gobolka wada socda waxay tusaale u tahay fariin u tahay in amniga magaaladan cabsida laga sheegay sida ay dadku u qalqal bisha Ramadaan ay u jecel yihiin kooxaha cadawga ee dadku u qalqalgeliyaan inaysan waxba ka jirin. waxaan ku afurnay suuqa Bakaaraha anagoo nabada qorshahan waxaan ugu talagalnay inaan shacabka kula qaybsano nabadgelyada intii aan guriyeenna ku afuri lahayn inaan dadka guryahooda ku afuraya amnigooda aan wax ka sugno wax ka ogaano sida hay'adaha amnigu u shaqeynayaan aan wax ka ogaano. waxaa halkan maanta aan ku afurnay ciidamadii amniga wax ka sugayay iyo dad kale oo qayb ka ahaa wadada oo aadaanku ku galay. marka insha Allah qaybaha kale ee gobolka Banaadirna waa tagi doonaa hadduu Alle maalinba meelan tagi doonaa laakiin suuqa Bakaaraha waa astaantii magaaladan waa astaantii ganacsiga Soomaaliya oo dhan. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu ayaa sheegay in qorshaha maamulka gobolka uu yahay in bulshada loo dhawaado. qorsheena walba wuxuu ahaa maamulka shacabka inaan noqon marka shacabkana la dareeno la qaybsano la fariisano la joogno waa wax runtii ahmiyad gaar ah noole. waxaan u mahad celinaynaa maamulka degmada Howlwadaag oo runtii si sharaf leh noo soo dhaweeyay iyo shacabka degmada Howlwadaag ayagana runtii nagu garab galay iyo hay'adaha amniga oo mudaba aan ka wada shaqeynayno sugidda amniga caasimadda. ramadaanka 10kiisa hore lagu jiraa waa 10kii raxmadda u baahan in bulshadu isku naxariisato. shalay ilaa habeen horena waxaan la tacaalaynay waxay ahayd saameyntii u yeeshay roobabka iyadana waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo shacabka gobolka Banaadir oo runtii kaalin weyn ka geystay sidii dadkaas loogu gurman lahaa. maantana gurmadkii ay heleen walow ay khasaaruhu intaas ka badan yahay noogana wada baahan yahay inaan si midnimo iyo wada jir leh aan ku wada raadsano. dhanka kale duqa magaalada Muqdisho injineeriisu ayaa kulan amniga ku saabsan xarunta degmada Shangaani kula qaatay maamulada degmooyinka Xamarweyne iyo Shangaani iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen laamaha amniga. kulan kadib ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu booqday garoonka kubadda cagta ee xarunta degmada Shangaani oo ay dhalinyarada ku ciyaaraan. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.